الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnaa buugga maadada sayniska fasalka afaraad ee dugsiga hoose xiisadeen u dambeysay waxaan kusoo sharaxnay cutubka afaraad oo aan kusoo sharaxnay biyaha xiisadan waxaan ku sharxaynaa duulaad insha Allah cutubka shanaad cuntada fasalka saddexaad waxaan kusoo baranay ama kusoo bartay noocyada cuntada ilaalinta nadaafadda cuntada in la nadiifiyo. Fasalka afraad waxaan ku baran doonaa duulaad insha Allah noocyada nafaqooyinka cunto dheellitiran iyo waxtarka caanaha iyo biyaha ayaan ku daraasayn doonaa duulaad insha Allah. Ardayna waxaa laga doonayaa markii cutubkan uu dhamaado inuu sheegi karo noocyada nafaqooyinka cunto isku dheellitiran waxtarka caanaha iyo biyaha. Casharka koowaad nafaqooyin markaan dhahayno shanta cunto oo lagu daray oo biyaha ayaa loo yaqaanaa nafaqooyin. Shanta cunto ayaa waxaa loo yaqaanaa nafaqooyin, marka biyahana iyagana waa laga maarmaan. Cunto kasta waxaa ku jira walxo oo muhiim ah oo jirkeena u baahan yahay si uu koritaan iyo caafimaad u helo jirkeena. Walxahaas kala duwan waxaa loo yaqaanaa nafaqooyin ayaa loo yaqaanaa marka walxahaasi kala duwan waxaa loo yaqaanaa nafaqooyin ayaa loo yaqaanaa. Cuntada waxaa ku jiri kara ilaa iyo 5 nafaqo ayaa ku jiri kara. Cuntooyinka qaar ayaa si gaar ah waxaa ugu badan marka nafaqooyinka qaarkood. Qaar ayaa waxaa ku badan borotiinka, qaar ayaa waxaa ku badan dufanka, qaar ayaa waxaa ku badan marka mineralska iyo vitaminiska. Marka cuntooyinka way kala duwan yihiin marka sida ay nafaqooyinka ay u kala kooban yihiin waa lagu kala duwan yahay. Nafaqooyinka kala duwan waxaa ka mid ah marka number 1 borotiin ayaa ka mid ah. Borotiin waxaa waaye amino acidska markii ay isku tagtagaan ayaa loo yaqaanaa borotiin loo yaqaanaa. Borotiinadu waa nafaqo jirka ku caawiya in uu koro. Sidoo kale borotiinku waxaa loo isticmaalaa marka dayactirka unugyada jirka iyo waxyeellada soo gaartay. Ilmaha koraya waa in la siiyaa marka cunto ay ku badan tahay borotiinka. Marka ilmaha haddii la siiyo cunto ku badan tahay borotiin ku badan tahay haddii la siiyo ilmaha koriinkooda ayaa badanaa jirkoodana wuu dhismayaa. Borotiinku waa nafaqada jirka dhista. Cuntooyinka borotiinka ku badan yihiin waxaa ka mid ah marka digirta ayaa ka mid ah, caanaha ayaa ka mid ah, waxyaabaha caanaha laga sameeyo sida dufanka oo ayaa ka mid ah sida waxaa ka mid ah suuga, kalluunka ayaa ka mid ah, ukunta ayaa ka mid ah, hilibka ayaa ka mid ah iyo wixii la mid ah. Kuwaani marka waa cuntada jirka dhista marka. Number 2 carbohydrate waa cuntada sokorta ku badan tahay marka. Wuxuuna ka samaysan yahay marka glucose iyo galactose iyo fructose oo isku tagtageen. Waxaa loo yaqaanaa marka sokor kuwa isku tagtageen waxay sameynayaan marka carbohydrate sameynayaan. Borotiinka sokorta
bariiska, canjeerada iyo baastada ayaa ugu badan marka ayaa ku badan cafan. Carbohydrateska waxaa ku badan sonkorta, bariiska, canjeerada iyo baastada ayaa ku badan iyo kuwo kale. Carbohydrate-ka waxaa u baahan marka jirkeena si uu u helo tamar degdeg ah. Waxaa loo yaqaanaa marka nafaqooyinka bixiya tamarta. Carbohydrate marka asaga wuxuu qani ku yahay tamarta ayuu qani ku yahay. Fastly marka wuxuu bixinayaa marka tamar uu bixinayaa. Nafaqooyin kalena waa laga heli karaa markaas. Caruurta marka yaryari ayaga marka badanaa waxay u baahan yihiin marka carbohydrate fara badan ayay u baahan yihiin maadaama ay jirkooda firfircoon yahay. Caruurtu waxa ay u baahan yihiin carbohydrate fara badan maadaama ay jirkooda firfircoon yahay. Meesha waxaa waaye maadaama ay jirkoodu ku dar marka insha Allah. Maadaama jirkoodu uu firfircoon yahay. Nambarka 3 dufan ayaa loo yaqaanaa. Nambarka 2 dufan. Dufan waxaa loo yaqaanaa hilibka qaybtiisa oo cadaanka ah ayaa waxaa loo yaqaanaa marka dufan loo yaqaanaa. Dufanku waa nafaqo sidoo kale aan ka helno marka tamar ayaan ka helnaa iyo kul ayaan ka helnaa. Cuntooyinka marka tamarta iyo kulka bixiyo ayuu ka mid yahay. Carbohydrate haddii aan weyno cuntada labaad aan u baahana marka waxaa waaye waa dufan oo aan tamar aan ka heleyno. Asaga borotiinka waxaa jirka u dhisaya soomaan badanaa marka tamartu way ku yartahay. Waxaa lagu keediyaa jirka ayaa lagu keediyaa si loo isticmaalo. Jirka ayaa lagu keediyaa. Meelaha jirka lagu keedin waxaa ka mid ah marka murqaha iyo adipose tissues-ka iyo liverka beerka ayaa lagu keediyaa. Tamarta la keediyo waxaa loo isticmaalaa marka jirku uusan helin cunto ku filan oo cuna ahaan ayaa loo isticmaalaa marka jirka waxaa waaye tamar ku filan oo adiga aan cunin qofka aan cunin. Dufanku waxaa ka helnaa marka hilibka qaybta cad, saliidda, subagga iyo looska ayaan ka helnaa. Marka asiga marka shaqadiis maxay tahay? Waxaan ka helnaa marka tamar iyo kul ayaan ka helnaa. Nambarka 4 vitamin. Vitaminadu waa nafaqo jirkeenu wax yar ugu baahan yahay. Vitaminadu jirkeenu wax badan ma u baahno marka wax yar ayuu jirkeenu ugu baahan yahay. Waxaana nafaqooyinka micro nutrientska nafaqooyinka la isku yiraahdo ayaa u ka mid yahay marka vitamin iyo macdan vitamins iyo mineralska oo labadaasi waxaa la isku yiraahdaa marka micro nutrientska ayaa la isku yiraahdaa marka nafaqooyinka jirkeena wax yar u baahan yahay ay ka mid yihiin marka nafaqooyinkaasi jirkeena wuxuu ugu baahan yahay wax yar ayuu u baahan yahay. Vitaminadu waa nafaqo jirkeenu uu wax yar ugu baahan yahay. Waxa ay ka caawiyaan marka jirkeena siduu u shaqeyn lahaa isaga oo difaaci lahaa marka cudurrada una noqon lahaa marka mid caafimaad qaba. Vitaminska jirkeena wuxuu u baahan yahay wax yar ayuu u baahan yahay. Wax badan haddii jirkeenu uu qaatan waxaa dhibaato ayuu dhalinayaa. Wax badan ma ugu baahnin marka wax yar ugu baahannahay. Marka jirkeena wuxuu ka caawiyaa marka sidii uu shaqeyn lahaa isaga difaaci lahaa cudurrada una noqon lahaa mid caafimaad qaba. Waxaana jira marka dhowr vitamin
oo jirkeena u baahan yahay oo ka mid ah marka waxaa ka mid ah vitamin A oo aragga qaabilsan, vitamin B oo isagana waxaa waaye qaabilsan marka waxaa waaye tamarta iyo waxyaabahaas ayuu qaabilsan yahay oo inuu ka shaqeysiyo jirka. Vitamin C waxaa waaye jirka meelaha oo jeexjeexmayana sida afka jeexjeexmaya oo asaga marka waxaa waaye anti inflammation waa marka waa allergic iyo waxyaabahaas ayuu la dagaalamaya inflammationka. Vitamin D lafaha ayuu qaabilsan yahay. Vitamin E oo isagana wuxuu qaabilsan yahay allergics-ka ayuu qaabilsan yahay iyo vitamin K oo qaabilsan marka oo jirowga dhiigga. Kuwa marka shaqada jirka ayay qaabilsan yihiin. Nambarka 5aad waa macdanta. Macdantu waa nafaqo jirkeenu wax yar ugu baahan yahay. Asigana jirkeena wax yar ayuu ugu baahan yahay. Wax badan haddii aan ka qaadano marka asagana dhibaato ayuu dhalinayaa. Wax badan haddii aan ka qaadano dhibaato ayuu dhalinayaa. Macdanta marka asaga wuxuu ka mid yahay marka micronutrients nafaqooyinka wax yar aan ugu baahanahay ayuu ka mid yahay. Qaar ka mid ah cusbooyinka macdanta ayaa laga maarmaan u ah waxqabadka biology-ga. Biology marka aan dhehaynin maxaa waaye noolaha. Waxqabadka noolaha. Jirku waxa uu u baahan yahay marka cusbooyinka macdanta leh sida xadiidka oo laga wado marka iron, calcium, phosphorus, iodine, sodium, magnesium iyo wixii la mid ah. Markii aan dhehayno marka waxaa waaye kuwa kale ayaa jiraan cadmiumka oo ka mid yihiin marka waa minerals badan ayaa jiraan. Casharka 2aad cunto dheelitiran. Cuntadu waa inay jirkeenu siisaa dhammaan nafaqooyinka kala duwan ee ku jira mid walba in ka mid ah. Marka nafaqooyinka aan soo sheegnay oo 5 ah waa in dhammaan aan ka helnaa marka nafaqooyinka kala duwan mid walba oo in ka mid ah waa inaan ka helnaa. Borotiinka waa inaan in yar ka helnaa. Carbohydrates waa in yar ka helnaa. Dufanta, macdanta iyo vitaminska. Cuntadu waa inay ku jirtaa marka borotiinka, dufanka, carbohydrateska oo ay la socdaan in ku filan oo biyo ah, cusbooyin iyo macdanta iyo vitamins marka intaas waa inay ka koobnaataa cuntada. Cunto ay ku jiraan marka dhammaan nafaqooyinka mid walba intii laga rabay oo jirku si hagaagsan ugu shaqeyn karo. Cuntadaas ayaa loo yaqaanaa marka cunto dheelitiran. Hadii marka cunto dheelitiran qeex hadii lagu dhaho maxaa leedahay marka cunto ay ku jiraan dhammaan nafaqooyinka mid walba intii laga rabay oo isku jirta si hagaagsan oo u shaqeyn karo. Cuntadaas ayaa loo yaqaanaa cunto dheelitiran. Sidoo kale waxaa qeexi kartaa cuntada marka ay ka kooban tahay protein, carbohydrates, lipids, minerals, vitamins waxaa loo yaqaanaa cunto dheelitiran loo yaqaanaa. Saasna waa dhihi kartaa. Qaybka noocaasna waad ku qeexi kartaa. Okay. Ma jirto cunto keliya oo laga heli karo xaddiga looga baahnaa nafaqooyinka oo idil. Sidaa daraaddeed, si aan u helno marka cunto dheelitiran waxaan u baahannahay marka inaan cunno cuntooyin kala duwan maalin kasta. Waxaa kaloo jirta marka cunto oo dhif ah oo cuntooyin oo yaryar laga helayo marka dhammaan cunto isku dheelitiran
ama cuntooyinka waxaa waaye laga helayo marka dhammaan kuwii kor aan kusoo sheegnay. Sida caanaha waxaan ka heli karnaa cuntooyinka oo cunto isku dheelitiran ayaan ka heli karnaa. Sida waxaa waaye digirta, cunto isku dheelitiran ayaan ka heli karnaa. Waxaa kaloo cunto isku dheelitiran aan ka heli karnaa marka ukunta. Saddexdaas cunto marka waxaan ka heli karnaa marka cunto isku dheelitiran. Cuntooyinka marka dheelitiran waxaa laga heli karaa marka cuntooyinka hoos kuusan. Tusaale waa borotiinka, waa hilibka, malayga oo hilibka doorada, hilibka oo xayawaanada noocyadooda kala duwan, ukunta, digirta. Caanaha waa kana iyo waxyaabaha laga sameeyo waxaa ka mid ah burcadka, farmaajaha laga sameeyo badarka waxaa waaye bariiska, rootiga, muufada, khudaarta iyo miraha salaatada, yaanyada, mooska iyo baradhada. Marka kuwaan yihiin oo mid walba in yar wax yar aan ku cunno ayaa marka waxaa loo yaqaanaa cunto dheelitiran loo yaqaanaa. Cunto dheelitiran sidoo kale waxaan ka helnaa caanaha keligood cunto dheelitiran ka helnaa. Haddii ukunta keligeeda aan cunno cunto dheelitiran ayaan ka helnaa. Haddii digirta aan cunno cunto dheelitiran ayaan ka helnaa. Casharka saddexaad waa waxtarka caanaha iyo biyaha. Cabidda caanaha carruurta faa'iidooyin badan ayaa ugu jirta. Caanaha waxaa ku jira dhammaan nafaqooyinka sida borotiin, carbohydrate, dufan, macdanta iyo fitamiinada. Waxaa kaloo jirta digirta sidoo kale iyagana waxaa ka helnaa cuntooyinka hadda aan sheegnay. Ukunta cuntooyinka hadda aan sheegnay ayaa laga helaa iyagana. Saddexdaas cunto ayaa marka cunto isku dheelitiran badanaa oo laga helaa. Waxaa lagama maarmaan ah marka in carruurta yaryar ay helaan caano, weliba in ay nuugaan caanaha naaska hooyadooda. Caanaha naaska hooyadooda waxaa ku jira macdano carruurta ka difaaca cudurrada. Waxaa habboon marka in hooyadu ay nuujiso ilmaha yaryar ilaa 2 sano laga gaaro. Waxaa habboon marka in hooyadu ay nuujiso ilmaha yaryar ilaa 2 sano laga gaaro. Marka cunuga wuxuu noqonayaa marka cunug maskax ahaan waxawaaye u fiican, jir ahaanna u dhisan ayuu noqonayaa. Marka ilmaha caanaha hooyada marka faa'iidooyin badan ayay u leeyihiin. Marka waxawaaye ilaa iyo cudurro dhowr ah ayay ka difaacayaan. Biyuhu marka waa muhiim. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وآيات قرآن واي. marka waxaan ka yeelnay marka biyaha wax kasto oo nool waa aayad quraan. Biyaha waa muhiim waa marka wax kasta salaada bini aadamka dhibic oo candhuuf ah ayaa laga abuuray. sala beerta marwa waxaa arkaysaa marka beer iska qalalan, roob haduu ku doo beertaas margeeda ayaa ka soo baxayaan. Marka biyaha waa muhiim waa marka biyuhu waxa ay muhiim u yihiin marka nolosha ay muhiim u yihiin. Celceliskii biyaha jirka ku jira qiyaas ahaan waa 10 galoon. 10 galoon markaan dhehayno halkii
galoon wuxuu u dhigmaa markaa 3.75 litir. halkii galoon wuxuu u dhigmaa markaa 3.75 litir halkii galoon. marka 10 galoon marka waxay noqon kartaa marka 37.85 ayay noqon kartaa marka 30 marka qiyaas leh waa hadda way ka yaraan kartaa marka qiyaas waa waxaa jira marka celceliska biyaha ee ku jira jirka ku jira marka qiyaas ahaan waa qiyaastii waa marka estimate waa 10 galoon. halkii galoon marka waxaan dhahnay 3.75 litir waa marka 10 galoon marka maxay noqonaya marka 10 galoon 37.85 litir ayay noqonaya marka waa qiyaastii. galoon waxaa loo yaqaanaa marka waa halbeeg oo lagu cabiro marka mugga biyaha ayaa loo yaqaanaa marka galoon loo yaqaanaa. waxa aan u baahannahay marka in aan cabno ugu yaraan 3 ilaa 4 litir oo biyo ah maalin kasta si ay u beddesho marka biyaha ku lumay kaadida, dhididka iyo neefsashada. biyaha ku lumay marka kaadida, dhididka iyo neefsashada biyihii ku lumay waa in biyo beddelaan waa in la helaa marka ugu yaraan marka 3 litir ilaa 4 litir biyo ah oo la cabaa maalintii. haddii aynan sameynin waxaa laga yaabaa in aynu fuuq baxno. ha sugin marka ilaa aad ka oonto. sameyso marka jadwal joogto ah ee aad biyaha ku cabaysid maalin kasta. biyaha waxa ay soo nuugaan marka oo ay qaadaan kuleylka ayay qaadaan. unugyada maqaarka waxay sidoo kale sii daayaan biyaha dhidid ahaan ay sii daayaan taas oo marka ka caawinaysa inaad qabowdo. qofka marka jirkiisina nafis u dareemo oo comfortable u dareemo marka waxa uu suurgelinaya marka biyihii ayaa u suurgelinaya oo ku filan oo jirkii uu helay. biyaha sidoo kale waxay ka qayb qaataan marka cunto kasta la burburinayo jirkaada waxaa loo baahan yahay marka oo biyo ayaa loo baahan yahay. cunto kasta la burburinayo dawara isku hayan marka cuntooyinka la burburinayo marka waxaa loo baahan yahay marka biyo ayaa loo baahan yahay. okay halkan ayaan ku ekeynaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wixii talo iyo tusaalahan insha Allah la soo wadaago. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.